يكون لوليا مالما حرية waxaa halkaan noo imaaday agaasimihii guud madaxdii waxaan ku soo dhaweynaa Cabdullaahi Xeydar agaasimaha guud maanta halkan waxaan u joognaa xuska diyaargarowga toddobaadka xorriyadda ee 26 Juun iyo 1 Luulyo halkan waxaa diyaar idinku ahaa oo idinku maaweelinayay music kala duwan iyo heeso ku taxalluqa toddobaadka xorriyadda kooxaha horseed iyo kooxda Bambayda horseed waxaan u mahad celinaynaa dadweynaha gobolka Banaadir sida kala yimiin toddobaadka xorriyadda oo gacan siinayay kooxda horseed qaybaheeda kala duwan ee Bambayda waxaan u mahad celinaynaa maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha gaar ahaan degmada Hodan Cali Baale oo nagu soo wajahan oo shaqooyin ku maqnaa oo isaguna barxadan diyaariyay iyo ammaankeeda iyadoo ay la sugayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay ka tirsan tahay kooxda horseed qaybaheeda kala duwan waxay noo sii socon doonaan dabaaldegyada kala duwan toddobaadka xorriyadda iyada oo maalin iyo habeenba la xusi doono waxaanu jecelnahay dadka Soomaaliyeed inay guryahooda calamada sulaan oo qurxiyaan iyo wadooyin ku dhow iyagoo uga jeeda dabaaldega toddobaadkooda xorriyadda waana 26 guuradii ka soo wareegtay maalintii ugu horeysay calan xora laga taagay dalka Soomaaliya 26 Juun iyo midowgii 1 Juulaay ee ay midoobeen gobollada waqooyi iyo gobollada koonfureed oo lagu dhawaaqay Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan jecelahay inta aanan meeshan ka tegin si dadweynuhu ay guryahoodii ugu noqdaan in loo qaado hal hees iyo hal mar oo loo garaaco Bambayda si dadweynuhu ay xaafadoodii u kala aadaan aad baa u mahadsantihiin والصلاة والسلام على رسول الله agaasimaha guud kooxda ciidanka xoogga dalka Bambayda dhammaan guddiga ka socda hay'adda dowladda shacab weynaha sharafta leh ee degmada Hodan ee halkaan jooga dhammaantiin salaamu calaykum Soomaaliya cadowgeeda abjoobo waa mahadsantihiin aad iyo aad aan kaga mahad celinaa sida mugay miisaan kale ee mar walba ugu taagantihiin munaasabadaha noocan oo kale ah haddaan kaga hodannahay oo uga mahad celinaynaa dowladda oo madaxweynuhu ugu horreeyo oo ra'iisul wasaaruhu ku xigo iyo guddoomiyaha gobolkaba mar walba sida ay wax noola qabtaan sidaa darteed loo xoreeye waa mahadsantihiin dhammaantiin waxaan rabaa inaan idin mahad celiyo oo u mahad celiyo guddiga halkaan jooga ee soo qabanqaabiyey munaasabadan iyo ciidanka qalabka sida iyo shacabweynaha degmada Hodan mar labaad iyo mar saddexaad waxaad halkaa u jeedaan ilaahay nimcadu siiyey waa roob meeshaan waa roob waa weedarka u jeedaan cimilo qurux badanaan joognaa nabad qurux badanaan joognaa wiil iyo gabar nagama dhimanayaan ma baqayno amniga muu baqaynaa galabta muu baqaynaa nimcada ilaahayna siiyey kuwa ka shaqeeyana oo ugu horeeyaan ciidamada qalabka sida ilaahay khayr ha siiyo iyo madaxdana gaarsiisaba sidaa darteed munaasabadahan waa noo sii socon doonaan galbahan oo dhan ay socon doonaan diyaar waxaa u tihiin kartida iyo dadnimada mar walba aad muujidaan iyo amniga ilaahay baa ku maasan laakiin shacabka degmada Hodan waa shacab qiimo badan nabadda wax ka yaqaana rabitaankooda mar walba waxay garab taagan dowladooda iyo ciidankooda amniga waa la ogyahay maalmihii aan soo dhaafnay dib gurmadooda uguma noqonin waxaan haysanaa maalmo farxad badan ma haysano maanta meesha waxaa u badan sidaad ogtihiin waxaan ugu haraysan waa jaamacadihii waxaa la ogyahay fasallada in laydinkugu soo geli jiro macalinka asoo fasal dhigaa in lagu diri jiro maanta miyaad ka baqaysaan amniga noocaasoo haysataan qofka raba inuu amnigaas oo wax idinkaga dhigo inaan meel uga soo wada jeedsano sida horaa u samayseen balanteen uma taha waa mahadsantihiin waa idiin mahad celinaynaa waa soo dhawaynaynaa ciidankanaga waxaan leenahay guulaysta waa soo dhawaynaynaa guddiga waa idinla sii shaqay doonaa waxaan u mahad celinaynaa dadka meeshaan jooga ee soo dhawaynta qiimaha leh ee mar walba aad u haysaan dadka jooga degmadan waa dad nabadeed waa dad xirfad leh waa dad aqoon leh waa dad diin leh waa dad sharaf iyo qiimo ay ku dhammaadeen
reer hooda waa mahadsantihiin guddigu waa mahadsanyihin